baarlamaanka waxa kaliya hadda madaxweynuhu uu hortagayo waxay la tahay 2 sano waa socon weeyday aan ka laaban inay tahay wax kale hadda anigu aan ka filayo male guux badan baa siyaasadeed oo kale waa maqlaayay ilaa shalay ilaa xalay ra'iisul wasaaraha la tuuraya iyo waxyaabaha waa maqlaayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka aragti dhiibtay kulanka baarlamaanka Soomaaliya uu hortagayo madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa ay ka hadleen kulankii xalay dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug madaxdooda iyo sidoo kale qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyadoona wax laga xumaado ku tilmaamay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo baarlamaanka kalsoonida kala laabanayo maalinka Sabtida arintaas horta waxay kula muuqataa madaxweynaha anaga muddo badan waa u soo saarnay 4 sano oo dhamaystay annaga dalkan waxaan nahay dan yar oo ka shaqaysato waxaana ku jirtaa danta dalkan iyo nabadeena waxay ku jirtaa inay nabad noqoto marka madaxweynaha waxa uu sheegay in xilligiisu oo dhamaaday inuu naga tago noona baneeyo xilka waa kulan aad iyo aad u wanaagsan natiijo fiican ka soo baxday natiijadaas aan rabnaa dalka inuu maanta nagu soo socdo oo waxa badan inay ka dhicin ma aqbali karna xataa waxa aqbali karna xataa maaha waan soo gaartay laakiin waxa aqbali karna maaha madaxweynaha taas kama filaynin intuu sharaf leeyahay waa intuu ra'iisul wasaaraha joogo mar hadduu ra'iisul wasaaraha tago annaga ba xiraynaa wajidka madaxweynaha waxa ka sugaynaa annaka inuu xilka wareejiyo ka sugaynaa haddeertan inuu ra'iisul wasaarayaasha isku bedelo oo Cali Maxamed Geedi uu keeno waxaan rabnaa sida runta ah madaxweynuhu inuu ka shaqeeyo madaxweynuhu wax badan oo lagu haseekan maray haddeer waxaan rabnaa lagu inuu kala furo madaxweynuhu annaka intaas oo dhan sugaynay oo codkiisa sugaynay oo si lagu soo dhaweynay maanta hadduu keeno dagaal iyo dhiil colaadeed oo xamar ka bilaabay madaxweynuhu asaga aabaleedahay shirka ay kulmeen madaxweynayaasha Galmudug iyo kuwa kale iyo haddii Ilaahay ku rooyahay iyo ra'iisul wasaaraha kuwaas guul bay ku dhamaadeen si farxad leh xamar oo dhanna waa laga soo dhaweeyay dadkii qaxayna waa soo wada laabteen gabi ahaantood marka maantay waxaan sugaynaa madaxweynuhu wax badan inuu xiriyo sidii wanaagsanayd oo loo soo dhaweeyay inuu noogu fududeeyo walaalkeen waxa weeye intaas 4 sano waa soo wada joognay wax kale oo aan ugu dar karno male xaaladda dalku inay qasan tahay waa ognahay waana joognaa waxyaabo badan oo u sababaana jira inay qasnaato waxaana muhiima Soomaalidu waxba way isku fahmi weysay dad dhexdhexaadiya oo macnaha culays kale oo dhexdhexaadiya labadooda inay helaan waayo 12 shir baa la galay 12 shir waxba ka soo bixi waayay qolobana qolay ku eedaynaysaa madaxweynaha tanaasuli waayay madaxweynuhu waan tanaasulay inta waa maqlaynaa waxaan jeclaan lahayn marka dad dhexdhexaadiya oo qolo walba wadadooda tusa in la helo marka aan sidaa leeyahay ma inaan shisheeyaha jeclahay macnaha waxa muuqatay Soomaalidu waxba isku fahmi laadahay is aamin waana dhacay oo la is aamini waay marka waxaan leenahay dalka Allah noo xaliyo nabadgelyada noo muhiim ah Muqdisho baarlamaanka waxa kaliya hadda madaxweynuhu uu hortagayo waxay la tahay 2 sano waa socon weeyday aan ka laaban inay tahay wax kale hadda anigu aan ka filayo male guux badan baa siyaasadeed oo kale waa maqlaayay ilaa shalay ilaa xalay ra'iisul wasaaraha la tuuraya iyo waxyaabaha waa maqlaayay dadka loo baahnaaba inay wada hadlaan ama ay kulmaan ama ay siyaasadda dalka iyo mustaqbalka ay ka wada hadlaan waa soo dhaweynaa wada hadalka ay wada hadleen mid nabadeed buuna ahaa madaxweynuhu ku raacay nabadaas in hore loo sii wado wadankuna doorasho aad soo dhaweynaynaa maalinta Sabtida waxay micnaa ila muuqataa in oo mooshin laga keen rabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble aad iyo aad ugu xumahay in micnaa baraha bulshada lagu arkayo qoraallo lagu sheegayo in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Rooble xilka laga qaadi doono waa nasiib daro in 2021 ayadoo lagu jiro magaalada caasimadda Muqdisho dagaal iyo colaad 1991 waa loo laabaa aad iyo aad ugu xumahay dhalinta Soomaaliya hadaan aanay aad iyo aad taas ugu damqanaynaa wallahi shirka micnaa hal dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Rooble iyo mucaaradka aad iyo aad soo dhaweeynaa aad iyo aad ugu faraxsanahay wallahi in nabad qaataan Soomaali nabad deeqdo colaad ma deeqdo ma fahad Isxaaq Rashiid Maxamuud 5TV Muqdisho يا اسكجر وانكو سلامة ود عبد الله دانت هذا كورن سؤال تاسو آخره يسوقه ساس هدينا وجواب أرمقل أديك بيا كاحقة من هذا جوابي عيد سنة كان كورما قبلها نصيب كودي ويلش واو جرتا إيه باقو شركتها هالدور فاشيون سنة كان ويلش اللبس كورة اللي قد مقارو ومحي وحيان درك أسد كولكشن فاشيون هاي أسد لباح ما هو مقاي قشتان درك أسد فاشيون إقارتو لباح يا كابا وأكاهايا ومحاد كتري يا أديكو مقاد لباح أركتساد نغيه نحذن
xabad xabadaad intuu ii istaagay ha kula jirto dharka asad fashion wiilkii loo geliyana qurux darteer xaadaa xabad xabad ku rogrogsahaysa hayabal inabe waliba kalar kasta ayaad ka helaysaa waa zaas waana qurux iyo istiilka ugu dambeeyay abaabala mugow dhasho ilaa uu ka qaangaarana waa loo helaa macnaha waa 6 bilood jirkiisa ilaa 15 sano jirkiisa oo xagee laga helaa aan wiilasha u doontay goob kastoo dhar lagu gado ama hal door fashion oo xafiiskooda uu ku yaalo bakaaraha suuqii hore ee Cali Dheere X xaruntii dahabshiil ama kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda